إنا لله وإنا إليه راجعون qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee reer Sool ayaa tacsi tiiraanyada u diray qoyskii qaraabadii asxaabtii guud ahaan shacabka Soomaaliyeed geeridii ku timi marxuum Caaqil Jaamac Maxamed Yuusuf Dalqaf oo ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay wadada u dhaxaysa magaalooyinka Laascaanood iyo Adhacadeye laguna aasay magaalada Adhacadeye maalinimadii shalay. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxaan halkan tacsi uga dirayaa eheladii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan geeridii naxdinta lahayd ku timi عاقل جامع يوسف عاقل حاج محمد دلقف وشلay taariikhdu ahay 7 bishii 8 2018 shil gaari ugu dhintay tuulada Canjiid oo u dhaxaysa degmada Adhacadeye magaalada Laascaanood runtii waxay ahayd geerin naxdin badan waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah inaga siiyo caaqilkana naxariistii iyo jannadiisa rabbi ha ugu deeqo ilaahayna qabriga ha waasiciyo runtii caaqilku wuxuu ahaa intii aan ka aqaanay nin samafal jecel oo kamid ah tiirarkii nabadda gobolka Sool ama gobolada Sool Sanaag iyo Cayn caaqilku wuxuu ka yimi intuu shilka habeenka subaxu dhimanay habeenkeedii wuxuu ka yimi degmada Ceelaf Weyn oo uu tagay hawshii nabadeyntii labada beelood ee walaalaha ahaa wuxuu ahaa guddigii lagu reebay ee marayay deegaamada si ay nabadda u gaarsiiyaan dadkii walaalaha ahaa ee dhibtu dhex martay wuxuu ahaa caaqilku shaqaqadii ka dhici jirtay koonfurta gobolka Sool ama magaalada Laascaanood sanadii 2016 iyo sanadii 2017 beelihii walaalaha dhex mari jirtay dadkii dhameeyay ee hawsha u guntaday ayuu ahaa markii dambana ku guuleystay wuxuu ahaa caaqilku dadkii ka shaqeynayay ee buddigaha ahaa shaqaqadii ka dhici jirtay degmada Adhacadeye nabadeedii dadkii buddigaha ahaa runtiina nabadda maanta Adhacadeye ay ku degan tahay dadkii ka shaqeynay Ilaahay fadligii ka sokow dadkii ka shaqeeyay ee u guntada ayuu ahaa waxaan leenahay caaqilku samafalka iyo wanaagga uu ka shaqeynay Ilaahay jannadiisa ha ugu abaalgudo su'aashana ha u fududeeyo qabrigan ha u waasiciyo caaqilku runtii wuxuu ahaa intaan ka aqaanay nin calool furan oo dabacsan waxa ahaa nin geesi oo hadalka aan la gaban maxadillah aad iyo aad muruga ay u timid tiirabi Adhacadeye Canjiid oo dhaxayso walaalkeen warbixintiisa waxaa dhameeyay walaalkay igu horeeyay Axmed Maxamed Cumar hadal badan meesha ma yaalo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maanta waxaan u weydiinaynaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u naxariisto Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa gacanta midigta Ilaahay ka siiyo qabrigana waasiciyo su'aashana Ilaahay u fududeeyo waayo waxaad ogaanaysaan asbaabaha ma kala duwanaa inaan qof adduunyada ku haray oo jirin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa noo sheegay diraya Caaqil Jaamac Maxamed Yuusuf Dalqaf Allah yarxam baan leenahay shalay ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay inta u dhaxaysa Adhacadeye iyo Laascaanood caaqilka waxaan Ilaahay uga baryanaa in Ilaahay qabrigiisa waasiciyo dambigiisa dhaafo dhammaan eheliyadiisii dhammaan ummadda gobolada SSC iyo dhammaan oqaashii iyo waxgaradkii iyo bulshadii uu ka tirsanaana waa uga taxsiyanayna ugu dambeyntii Caaqil Jaamac Yuusuf Dalqaf ayaa ka mid ahaa tiirarka waaweyn ee nabadda ee gobolka Sool isagoo ka soo qayb qaatay ololaha nabadeynta ee la dhex dhigay qaar ka mid ah beelaha gobolada Sool Sanaag iyo Cayn isagoo toddobaad ka hor ka soo noqday deegaanka Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag halkaas oo lagu heshiisiinayay laba beelood marxuum caaqilku waxa uu ka mid ahaa uqaasha waaweyn ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxana uu door weyn ka soo qaatay horumarka bulshada waayihii kala duwanaa ee la soo maray si gaar ah waxa uu kaalin mug leh ugu lahaa nabadeyntii ka dhacday koonfurta gobolka Sool sanadkii la soo dhaafay 2017